بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله maanta waxaan halkan ku bilaabi doonaa haduu ilaahay mayadhihin buuga physics-ka manhajka cusub fasalka form 2 saan ognahayba wuxuu ka bilaabanayo waxa weeye buuga chapterkiisa koowaad uu ka bilaabanayo waxa weeye measuring instruments qalabyada wax lagu cabiro saadarteed qalabyada wax lagu cabiro waxa ugu horeeya waxa weeye meter rule ka maanta insha Allah ka bilaabeena meter rule waa maxay meeshan halkan waxa ku qoran macna insha Allah halkan waxa noo qoran measuring instruments waa maxay meter rule aan isweydiino what's meter rule waa maxay meter rule qeexitaanka halkan buu kugu yaalaa. The description of meter rule is a device or a type of a ruler that is used to measure lengths, widths and heights of different items. Description ka misna definition ka uu leeyahay meter rule ku mastaradani waxa weeye is a device or a type of a ruler waa aalad baa lagu dhahaa waa qalab misna aalad misna a type of a ruler qayb ka nooc kamid ah mastaradu taasoo loo isticmaalo to measure lengths in lagu cabiro dhererada, widths balacyada and heights iyo joogaga of different items ee shayooyin kala duwan. Waa maxay shaqada ugu weyn marka uu qabto meter rule-ku? Aan isweydiino. The main function of meter rule is to measure things. Shaqada ugu weyn uu leeyahay meter rule-ku waa inuu cabiro shayada kale in lagu cabiro waa shaqada ugu weyn ee meter rule-ku uu leeyahay. Halkan sidoo kale waxa ku ogaan doonaa meter rule-ku waxaan ku ogaan doonaa meter rule-ku oo halkii meter inuu la mid yahay 100 cm saa ku soo baratayba primary-ga saa ku soo baratayba 1 meter is equal to 100 cm marka halii baa lagu kala qaadayaa meter rule-ku halkii meter inuu la eg yahay 100 cm inuu la eg yahay. Hada primary-ga ku soo baratay insha Allah waa la qabsan kartaa oo wada kartaa. Marka aan dhameystirno meter rule-ku halkii meter wuxuu la mid yahay 100 cm. Sidoo kale shay kale u baahan in la ogaado waxa weeye scale division misana accuracy waxa la what is accuracy waa maxay accuracy gan anaga noo reeriyay. Accuracy was the smallest scale division of a meter rule. The smallest scale division of a meter rule or any instrument is known as its accuracy. Hadda aan ogaano marka what is the accuracy of meter rule halkaan aan ku ogaanayna marka the smallest scale division miisaan qaybida ugu yar ee uu leeyahay meter rule-ku is waxa weeye 0.1 cm waa 0.1 cm way marka oo taasoo 0.1 cm kaasoo la mid ah waliba la sii mid ah 1 mm marka waa maxay hadda su'aashu waxa lagu keenayaa what is accuracy oo kale waa maxay accuracy gan lagu wareeriyay misana scale division kan la sheegay waa maxay waa kan marka accuracy qeexitaankiisa waa kan hadii lagu weydiyo what the smallest scale division waa miisaan qaybida midda ugu yar of any instrument uu leeyahay instrument kasta mise qalab kasta uu leeyahay is known as waxa loo yaqaanaa it is accuracy baa loo yaqaanaa miisaan qaybida uu leeyahay qalab kasta ayaa waxa loo yaqaanaa it is accuracy. Hadaba halkan hoose waxaan ku arkaynaa horeyna waxa u soo ogaanay inuu accuracy-ga misana scale division-ka oo uu leeyahay meter rule-ku uu yahay 0.1 cm wixii lagu ku sii sheegayaa wax badan oo nuxur la meesha ku yaalo aan fiirino marka qodobada oo loo isticmaalo meter rule-ku
meter rule markaynu isticmaalayna when we are using meter rule we must ensure 3 characters or 3 characters. The first plan or the first character we are ensuring is whenever we are using meter rule one must be ensured. mar walba aynu isticmaalayno meter rule-ku one must be ensured means 3 must be ensured. saddexdan soo socoto waa in la xaqiijiyaa xaqiiji saddexdan soo socoto oo hal waa in la xaqiijiyo buu kuliyay hadda laakiin saddexdan soo socoto waa inaan xaqiijinaa oo aynu ognahay oo aynu ku dhaqano oo aynu practice ku sameeyno. What the object to be measured shayga la rabo the object shayga weeye oo la rabo to be measured in la cabiro shayga la rabo in la cabiro is in contact waa inuu taabtaa with the meter rule. meter rule-ku waa inuu taabtaa. meter rule-ku baa soo qaadaysaa shayga aad rabtay inaa cabirto baa kor saaraysaa waa isku taabanaysaa. waan sameynaa badanaa waan sameynaa kulligeena waxaan wax nolol sheegay maaha markaynu harqaamada joogno oo kale markaynu wax cabirayno waan sameynaa waxaan. Next, that one end of the object is 0 centimeter mark. hal bardhamaad ee uu leeyahay shaygu misana waxa la cabirayo hal bardhamaad uu leeyahay waa inay ku toosnaataa 0 centimeter mark calaamada 0 centimeter ka ah ee uu leeyahay meter rule-ku. meter rule-ku markaa saarayso shayga aad ina cabirto rabtid in shaygaasi meter rule-ka meesha qaybtiisa dambe ee 0 centimeter ka bilaabanayso waa inay istaabtaan number kale kama bilaabaysid. The third tips is that the eye is perpendicular to the scale as to avoid parallax error. issue waa inay is perpendicular waa inay ku qotontanaataa ishaadu waa inay mar walba ku aadisnaataa ad eegtid si fiican aad u eegtid miisaanka as to avoid si looga fogaado marka as to abstain or refrain as to abstain avoid si looga fogaado parallax error qaladaadka humaaga ah wax yar shucaaca wax yariska ah ala arki karin si looga fogaado ishaada mar walba inay ku toosnaataa scale-ka waa inay ku toosnaataa misana miisaanka waxa cabirayso cabirka waa inuu ku toosnaadaa. meter rule-ku lagu sheegana waa kana waa ujeedaa masarda waaye ay cashirkan kiisa la mid ah intaan ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo insha Allah. hadda channel ku cusub tahay please subscribe saar ha ka iloobin subscribe-ka. bye bye.